بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل وعن ونكسد دعوة halkani waa janaalkeena runta wararka qodobada warkeena aad ku daawadootaan waxaa ka mid noqon doona mucaaradka oo la sheegay inay diyaarinayaan ciidanka badbaado qaran labo sababta ay u diyaarinayaan maxay tahay madaxda maamulada Jubbaland iyo Puntland oo kulamo siyaasadeed ka wada Muqdisho madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roble oo tijaabinaya waqti kan awoodahooda ciidan wasiirka gaashaandhigga xukuumadda Soomaaliya oo gabi ahaanba loo diiday inuu galo gudaha xarunta wasaaradda gaashaandhigga midowga musharaxiinta khilaaf xoogan soo kala dhaxgalay iyo dibadbaxyada lagu taageeray Roble oo u muuqanaya waqti kan inay baaqdaan iyo wararkii ugu dambeeyay ee go'aamada siyaasadeed ee waqtiga dalka laga qaadanayo iyo daawadayaal warka janaalkeena runtii kugu soo gudbin doona hadaba daawada hadii aad janaalkeena ku cusub tahay subscribe loo saar janaalka isla markaana wararkeena leegay sheerkii commentiga ugu dadaala arku bilaaw qodobka ugu horeeya mucaaradka ayaa waxaa la sheegay inay diyaarinayaan ciidanka badbaado qaran labo xilli ay isku diyaarinayaan inay dibadbaxyo magaalada Muqdisho ay ka sameeyaan mucaaradka sida weyn uga soo horjeeda madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa waxay markaani qorshayaal waaweyn ay doonayaan in ay ku diyaariyaan ciidanka badbaado qaran labo wararkii ugu dambeeyay ayaa waxay sheegayaan in ay mucaaradku ay hadda doonayaan inay magaalada Muqdisho ay markale dib ugu soo celiyaan ciidanka badbaado qaran kuwaas oo maalmihii ugu dambeeyay hub aad u fara badan lagu qeybinayay duleedka magaalada Muqdisho wararkii ugu dambeeyay ayaa waxay sheegayaan in Xasan Sheekh Maxamuud Cabdiraxmaan Cabshakuur Warsame ee qaar kamid ah siyaasiyiinta mucaaradku ay rajo wanaagsan ay ka qabaan in dibadbaxyadooda ay Muqdisho ay uga dhacaan isla markaana ay ka hortagaan cid kasto carqaladeyn karta dibadbaxyada ay ka sameynayaan magaalada tani caasimadda Muqdisho wararka qaar ayaa waxay sheegayaan in weli taalada daljirka daahsoon ay ku sugan yihiin ciidamo ka tirsan kuwa mucaaradka kuwa oo la tilmaamay inay u diyaar garoowayaan sidii ammaanka guud ee dibadbaxa ay u sugi lahaayeen xilli gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo sidoo kale mas'uuliyiinta amniga gobolka ay sheegeen inaysan dibadbax ka dhici karin gudaha magaalada tani caasimadda Muqdisho ayaa loolan xoogan oo siyaasadeed uu ka soconaya iyadoo sidoo kale laba garab ay u kala baxeen midowga musharaxiinta wararkii ugu dambeeyay ayaa waxay sheegayaan in khilaaf xoogan uu soo kala dhaxgalay midowga musharaxiinta khilaafkan ayaa waxaa la tilmaamayaa in ay si gaar ah udub dhaxaad ay ugu yihiin Xasan Cali Kheyre iyo sidoo kale Shariif Sheekh Axmed oo waqtigan u muuqanaya in ay gibi ahaanba ay ka soo horjeedaan in dibadbaxyo Muqdisho ay ka dhacaan kuwaas oo looga soo horjeeda madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo dibadbaxyadani oo ay hogaaminayaan Axmed Macalin Fiqi Cabdiraxmaan Cabshakuur Warsame Xasan Sheekh Maxamuud ayaa hadda waxa ay Xasan Cali Kheyre iyo Shariif Sheekh Axmed ay qorsheynayaan in gibi ahaanba uu baaqdo taasina waxay u muuqanaysaa in culayska xoogan ee siyaasadeed ee waqtigan ka dhex jira midowga musharaxiinta uu noqon karo mid meel xun gaara inkastoo aan la ogeyn wararka kale ee soo bixi kara haddana warar hoose aan helnay ayaa waxay sheegayaan in ay midowga musharaxiinta laba garab ay u kala baxeen labadani garab ayaa waxaa kala hogaaminaya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Shariif Sheekh Axmed go'aamadii ugu dambeeyay ee dalka ka soo baxay ayaa siyaabo kala duwan ay u kala taageereen inkastoo hadda ay u muuqanayso in Shariif Sheekh Axmed uu si gaar ah u doonayay in taageero ugu muujiyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo halka Xasan Sheekh Maxamuud uu taageero cad u muujinayo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble kulamo kala duwan ayuu la qaatay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble qaar kamid ah midowga musharaxiinta ay ugu horeeyaan Xasan Cali Kheyre iyo sidoo kale Shariif Sheekh Axmed kadib shirkii golaha wada tashi qaran ee Muqdisho ku soo gabagaboway ra'iisul wasaaraha dalka ayaa kalsooni buuxda u muujinaya Xasan Sheekh Maxamuud Cabdiraxmaan Cabshakuur Warsame xilli halka kale uusan kalsooni buuxda uusan ku qabin Shariif Sheekh Axmed iyo sidoo kale musharax madaxweyne Xasan Cali Kheyre tani ayaa waxay u muuqanaysaa in kalsooni darro aad u xoogan ay ka dhex abuurtay isku tiirnaashada midowga musharaxiinta maalmihii ugu dambeeyay iyo waxaana wararkii kala duwan ee soo baxaya ay sheegayaan in khilaafkan xitaa ay xarumihii kala duwanaa ay isla deganaayeen midowga musharaxiinta ay ku kala guureen waxaana arrinkani u muuqanaysa in kooxda Farmaajo ay si weyn ay u doonayso in laba garab ay u kala jibiso midowga musharaxiinta
xasan cali kheyre iyo shariif sheekh axmed ayaa horey waxay u sheegeen in waqtigan muhiim ay lahayn in dalka xaalad dagaal uu galo, iyadoo cabdiraxmaan cabdishakuur iyo sidoo kale xasan sheekh maxamuud ay ku doodayaan in taageerada ay u muujinayaan ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ay tahay mid waajib ah, islamarkaana cid kasta oo kasoo horjeeda ra-iisul wasaarahu ay dagaal ay la geli doonaan. sidoo kale xasan sheekh maxamuud iyo cabdiraxmaan cabdishakuur warsame qorshayaashooda ugu waaweyn ayaa waxa uu yahay in taalada daljirka daahsoon ciidamada la geynayo ay noqon doonaan kuwa si gaar ah kaga amar qaata midowda musharaxiinta, gaar ahaan garabka xasan sheekh maxamuud. garabka xasan sheekh maxamuud ayaa hadda waxa uu aada u doonayaa in uu guulo uu ka gaaro dibadbaxyada kala duwan ee looga soo horjeeda maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo sidii muqdisho ay kaga dhici lahaayeen. dhinaca kalena daawadayaal, madaxda maamulada Puntland iyo Jubbaland ayaa kulamo siyaasadeed ka bilaabay magaalada tani caasimada ah Muqdisho. Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe iyo Saciid Cabdulaahi Dani oo ka qayb galay shirka golaha wadatashiga qaran ee Muqdisho kusoo gabagaboobay ayaa waxay kulamo kala duwan ay la yeelanayaan qaar ka mid ah waxgaradka Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada caasimada ah Muqdisho. haba ugu horeeya Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo kulamo kala duwan la qaatay Ambassador James Swan, isla markaana uu kala hadlay sidii dardargelinta doorashooyinka deegaanada Jubbaland iyo Kismaayo in kaliya ay ka dhacdo doorashada aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya. Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa shirka qodobadii ka soo baxay waxa uu ahaa mid faa'iido fara badan uu ku qabo, maadaama hogaamiyaha Jubbaland uusan dooneynin in magaalada Garbaharey ee gobolka Gado ay doorashada aqalka hoose ay ka dhacdo, taasi oo waxgaradka dega qeybo kamid ah deegaanada Jubbaland aysan ku qanacsaneen. deegaanada Jubbaland ayaa maalmihii ugu dambeeyay waxaa aada u kala fogaa siyaasiyiinta qeybaheeda kala duwan ee halkaasi ku sugan, iyadoo madaxweynaha culays aada u xoogan uu kala kulmayay beesha degta qeybo kamid ah gobolkaasi Gado. waxaana arrinkani u muuqanaysaa in culays xoogan ay waqtigan saarayso in tallaabo kasta oo ku aadan doorashooyinka maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo, maadaama farmaajo uu doonayay in doorashada magaalada Garbaharey ka dhacayso ay noqoto mid isaga xildhibaanada uu doonayo ay kusoo baxaan. dhanka kale, Saciid Cabdulaahi Dani ayaa weli la daalaadhacaya dagaalka ciidamada BSF-ta oo si gaar ah dhibaato badan uga dhaliyay magaalada Boosaaso. hogaamiyaha Puntland ayaa waxaa hadda laga dhadhicinayaa inuu gebi ahaanba uu ka laabto xilka qaadistii uu ku sameeyey hogaamiyaha maamulkaasi, gaar ahaan taliska guud ee ciidanka BSF-ta. wararkii ugu dambeeyay ayaa waxay sheegayaan in Saciid Cabdulaahi Dani uu marnaba uuna dooneynin in uu dib uga laabto xilka qaadistii uu ku sameeyey Maxamuud Diyaano, waxaana arrinkaasi u muuqanaysaa mid culayska waqtigan ku badinayso madaxweynaha maamulkaasi. inkastoo waxgaradka dega qeybo kamid ah deegaanada maamulka Puntland ay sheegeen in waqtigan xaadirka ah ayna wanaagsanayn in dagaal ay ka dhaco qeybo kamid ah magaalada Boosaaso. haddana wararkii ugu dambeeyay ka imaanaya magaalada Boosaaso ayaa waxay sheegayaan in weli Saciid Dani cadaadis lagu saarayo inuu ka laabto xilka qaadista taliyihii hay-adda nabad sugidda ee maamulkaasi Puntland. dhanka kale, wararkii ugu dambeeyay ee wasaaradda gaashaandhigga ka imaanaya waxay sheegayaan in Cabdiqaadir maxamed nuur gebi ahaanba loo diiday inuu galo xarunta wasaaradda gaashaandhigga ee xukuumadda federaalk Soomaaliya. xarunta wasaaradda gaashaandhigga ayaa waxaa hadda la sheegayaa in ciidamo ka tirsan ilaalada wasaaraddaasi ay u diideen wasiirka gaashaandhigga inuu gudaha u galo, tani oo noqotay dhibaatada ugu weyn ee waqtigan xaadirka ah jirto. haddana waxaa si gaar ah u doonayaa wasiirka gaashaandhigga inuu indheeyo xaalada guud ee wasaaradda, iyadoo ay ciidamada ilaalada wasaaradda gaashaandhigga ay u aqoonsan yihiin sida ay sheegeen wasiirka gaashaandhigga Xasan Nuur Xaaji oo hadda loo wareejiyay wasaaradda cadaaladda. wixii ka dambeeyay khilaafka Farmaajo iyo Rooble, ciidamada ayaa laba garab u kala jabay, iyadoona qaarna ay taageerayaan Rooble qaarna ay taageerayaan Farmaajo, taasi oo halis dagaal dalka gelisay. haddana wararkii ugu dambeeyay aan helayna ayaa waxay sheegayaan in maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo iyo maxamed xuseen Rooble ay waqtigan ay tijaabinayaan awoodahooda ciidan iyo ciidamada ku xiran inta ay gaarayaan. guud ahaan daawadayaal, warkii oo aad ka daawanayseen janaalkeena runta wararka saaxiibada aan jecelnahay waa naga intaa. haddaba daawada, haddii aad janaalkeena ku cusub tahay, subscribe noo saar janaalka, islamarkaana wararkeena leeg iyo sheerkii commentiga noogu dadaala oo aadna ku mahadsantihiin daawashada warka janaalkeena runta.